xafladan shirweynaha ah oo ka soo qayb galeen waxgarad aqoonyahan siyaasiyiin odayaasha haweenka iyo dhalinyarada beesha Amaanle oo kamid ah beelaha deegaanada Puntland waxa ayana xafladan goobjoog ka ah nabadoono cuqaal iyo waxgarad kale oo lagu cusumay ka soo qayb galka xafladan ku dhawaaqista ugaaska beesha Amaanle Professor Abdul Haaji Jaamac oo kamid ah aqoonyahankii ka qayb qaatay qabsoomida shirweynaha beesha ayaa Xuseen midnimada beeshu tahay muhiim qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan isimkaani cusub beesha waxaan jeclahay inay midowdo inay horumar samayso marka waxaan idinka codsanayaa isinka maanta aan dooranay hool adag baan u dhiibnay howsha aan u dhiibnay yaan kaga cararay waa inaan ku taageernaa si uu guusha u haysto haddii kale keligii wax ma wadin marka waxaan ka codsanayaa demiyiinba odayaashii meelka nabadoonnada diinka mutacalimiinta dhalinyarada haweenka kulli inaan garab ku siino howshan culus aan maanta u dhiibnay waa Cabdijaliil in aan garab ku siino nabadoonnadii ka soo qayb galay shirkani ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashada ugaaska cusub ee beesha Amaanle ballan qaaday inay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan anagu odayaal ahaan waan ku garab siinaynaa garab baan ku siinaynaa afiya addi inaanu maaragtay dadaal samayno sidii hore aan ugu soo dadaalay oo 5 bilood hawsha kale aan ugu soo fadhinay insha Allah anaguna garab baan ku siinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku xamdiyeynaa ugaaska la doortay waa taageeraynaa waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa insha Allah taala waana ku guulaysanaa biidhnillah karim waxaan kaloo ku dambaynayaa ugaaska adiguna dee waad aragtaa culayska u fuulay maanta xorriyad iyo waxa weeye ama qofku markuu mas-uuliyad gaaraya saaray wuxuu rabo iyo raggiisa waxaa lagaa rabaa beeshaa ku doorantay sidii dhexdhexaadnimo ugaas Cabdijaliil Cali Faarax ugaaska cusub ee beesha Amaanle ayaa gabagabadii shirkaani soo xiray kana hadlay waxyaabaha uu higsanayo Xuseen inuu diiradda saari doono arrimaha dhaqanka iyo mideynta beesha Amaanle insha Allah waxaan jeclahay inaan arrimaha dhaqanka ka hadlo waxaan jeclahay inaan maaragtay sidaan ula shaqeyn lahaa xagga nabadda uga shaqeyn lahaa isimada Puntland aan uga shaqeyn lahaa horumarinta dalka aan ka shaqeyn lahaa isku xirka beesha aan uga shaqeyn lahaa insha Allah sidaas aan jeclahay inaan maaragtay ku hawl bilaabo beeshana iyo dadka kale ee reer Puntland waxaan ka codsanayaa inay arrintaa gacan ugu siiyaan haddii aan gacan ka helin hawsheeda inaan gudan karin bay u waqtahay marka waxaan ka codsanayaa in arrintaas gacan fiican lagu siiyo anna aan ku dadaalo sida aan xilkaas la ii saaray aan u gudan lahaa insha Allah haddii Ilaahay idmo waxaan jeclahay haddii Allah idmo inaan maaragtay marka koowaad iyo marka labaad baan awoodda saaro isku xirka iyo mideynta beesha aan mas'uulka ku ahay ka bacdina aan u gudbo beelaha Soomaaliyeed ama beelaha reer Puntland insha Allah haddii Ilaahay idmo wax Allah wixii aan ka qaban karo karaankayga insha Allah haddii Ilaahay idmo sidaas aan jeclahay dhawaanta ayaa lagu wadaa in beeshu qabato shirar kale iyo xaflad caleema saarka ugaaska cusub ee beesha Yuusuf Maxamed Maxamuud Hon Cable TV Garowe